wasaaradda waxbarashada ee degmadu Bright Future Academic runtii waa arin guula isagoo aan waliisan ka helin sida uu shaqeeyay waxaanu aaminsanahay ka degmahaan inuu baahida waxbarashada wax badan ka daboolayo waanuna soo dhaweynaynaa waanuna garab taaganahay waxa kale loo baahan yahay oo runtii aad loogu baahan yahay in macallimiinta marka ay macallimiintu wax dhigayaan oo maanta hogaaminayo iskuulkan hogaaminayo macallin Cabsahal oo runtii garanaya habkii teaching-ka waxaan aaminsanahay inay macallimiintaasuna ay dhismi doonto oo sida wax ay ugu barayaan ciyaalka ama structure-kooda ama sida hadda halka nooga muuqatay horteeda lagu soo bandhigay ay tahay in way aragnimo badan ay ka muuqato oo khibrad ay ka muuqato waxaan ugu mahad celinayaa macallin Cabsahal oo runtii ah maskaxda ka dambaysa iskuulkan iyo inuu furmo mana aha iskuulkaasu iskuul public ah waa iskuul bareefada haddana waa iskuul ka diiwaan gashan wasaaradda waxbarashada mas'uuliyad baana naga saaran ka degmaahaan ama bareefada noqdo ama public ha noqdo labadaba anaga mas'uuliyad baa naga saaran isku siina waanu ugu shaqaynaynaa waayo shacabkaanu anagu shaqaynaynaa shacabkaana soo doortay inta marka laga tago waan ku faraxsanahay inay maanta magaaladu ay yeelato KG mar labaad waxaan ugu faraxsanahay anu waan soo baray macallin waliba waxaan soo maray macallin KG iyo macallin dugsi sare iyo macallin dugsi hoose oo ah home teacher wax la dhaho home teacher-kii oo la casriyeeyay weeye KG-ganuna waxaan ogahay faa'iidada ku jirta anu intaan jaacada dhiganayay macallin baan ahaa guri waxaana wax u dhigayay oo aan ogaa ardayda kuwaan iskuulba gelin oo KG1 KG2 KG3 baa markaas ay ula gelayaan ardaygaas uulada wuxuu imanayaa isagoo ka qiimo badan oo dhisan mid eer sheeganaya waxa aad loogu bogo in maanta KG-gii oo laga bilaabay degmada Garadag waa horumar weyn oo ay degmadu gaadhay waa horumar soo kordhay waanu soo dhaweynaynaa cid kasta oo ka soo shaqaysay cid kasta oo ka qayb qaadatay cid kasta oo runtii xalfadan maanta joogta waanu uga mahad celinaynaa arrinka waxaan runtii maanta macallimiinta halkan joogta ee iskuulkan iba furtay waxaanu annaguna insha Allah haddii Ilaahay nafteena daayo ka maamul ahaan in ballan qaadana inaanu garab taaganahay waana salaamantiin dhammaantiin ardayda iyo waalidiintana waxaan ka codsanayaa inaanay haddeer sidii hore ee berigii hore muuqan jirtay ardayga iyo waalidku isku xidhnaayeen sidii Sheekh Maxamed Faarax sheegay ardayga iyo waalidku isku xidhnaayeen laakiin haddeer waxa jira gaab badan baa jira runtii waxaan taana leeyahay waalidiinta kula dardaarmaya inaan ardayda magaalada Garadag waxay leedahay resource-ka ay leedahay meel walba anu waa ka sheegaa resource-ka kaliya ay leedahay waa waxbarasho Garadag waxay leedahay resource-ka kaliya ay leedahay waa waxbarasho ka gole ahaanna waa og yihiin golaha laftiisana aan oo xildhibaana yaano maayir waa u sheegaya resource-ka ay Garadag leedahay haddaan qofku isdiidsiinayn ama aan la isdiidsiinayn waa waxbarasho in waxbarashada lagu dadaalo tayadeedana lagu dadaalo waa muhiim resource-ka waxaad garanaysaan maanta ardayda ka baxday cid kasta oo ka soo baxday degmada resource-kii weeyi macallin Cabsahal macallin baan anaga uu noogu soo noqday isagu macallimiintiisii waa fadhida maamulaha iyagii hore fadhiya oo Faarax Aadan Ciise runtii aan uga mahad celinayno halkan oo aanan abaalkiisa gudi karayn marka waxaan idin sheegayaa waalidka degmada aynu joognaa resource-keedu waa waxbarasho arday bay soo saartaa arday tayo leh soo saari jirtay gaabka waxbarashada ee jira ee dalka oo dhan ka jira waxbarashada ardayga iyo waalidkii iyo macallinkii waxaan leeyahay intaana laga dhex saaro oo waalidku ka dadaalo inay intaasu ay gaab gasho haddii ay gasho waa gaab ay gasho oo waxbarashada uu ka warheli waayo runtii uu ka warheli waayo ardaygii wax baranayay uu ka warheli waayo waalidkii
waxaad halkaa ogaanaysaan inaan ardaygaasuna waxba baran macalinkiina uu khasaaray oo ku tacabkii ku khasaaray laakiin waxaan rajaynayaa sida maanta maamule Faarax aadan ugu faanayo resource-kii uu soo saaray macallimiinta waxaan ka rajaynayaa resource-kii aad soo saari lahaydeen baa laydinga baahay ee muuqan lahaa resource-kii koow baan ka nahay sharmaako gudoomiye commission maanta inala joogaa koow baan ka nahay kuwa kale oo dalka jooga oo xilalka haya koow bay ka yihiin oo laba ka yihiin Faarax aadan ciise maanta waa u maamuus waana wuxuu sheeganayo waana wuxuu u yaala oo meel u yaala qof walibana waa woogya resource-kii baa idinkana laydinga baahayay ka macallimiin ahaan macallimiinta cusub ee hadda halkan maanta iskuulka wax ka dhigaysa resource-kii aad soo saari lahaydeen baa laydinga baahayay hadalka waanan badiyey waanan biyey waad salaamantiin dhammaantiin aadna waan inii salaamayaa waxbarashadan aad u yar jecelahayo haddaan hadalka badiyey waa layga raalli ahaanayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu